Bismillah asxaabay ku soo dhawaada channelka Ustaad Gabow waa mar kale iyo sheekadii la magac baxday saxaraha marka ilaa iyo mee baliibka Toronto qisadii dhabar adeega ee Haruun ku dhacday fadlan haddaadan hore ula soconin sheekadan soo daawo saddexdii qaybood la soo dhaafay markaana waxaan guda galaynaa qaybtii afaraad oo xiise gooniya leh sheekadan waxaan idinla socodsiinayaa anigoo Ustaad Gabow fadlan page-keena ku soo fiir oo subscribe saar haddaad ka mid ahaydna waad ku mahadsantahay markaan Haruun wuxuu soo gaaray magaalada Casab ee dalka Eritrea hay'adaha socdaalka iyo kuwa qaxootiga ayaa qaabilay asaga iyo asxaabtiisii ayagoo koox ula socday kooxdii ka soo horeysay iyo kooxihii ka dambeeyaba meesha ayaa waxaa lagu wada kulmay guriga lagu soo dhaweeyay dadka qaxootiga kadibna waxaa dhacday inay meeshii joogaan maalmihii koowaad waxay go'aansadeen maadaama magaalada ay ahayd magaalo xeebeed inay aadaan xeebta oo iska soo dalxiisaan maadaama camal kale aysan lahayn oo ahaan ka ahayn socdaalkaas safarkuna u baaqan yahay hay'adaha socdaalka intay ka fasaxayaan Haruun iyo dhalinyaro meesha isku barteen oo wiilal ahaa ayaa waxay go'aansadeen inay xeebta aadaan halka Cali iyo xaaskiisa Maryamna ay dhaheen waan idin raacaynaa Haruun oo markii hore ballan ka qaaday ubax u tegay ku yiri ubax anigu xeebtan aadayaa ma raacaysaa ubax wuxuu tiri kaama harayo waa ku raacayaa halka ogbaadna sidoo kale soo raacday waa la baxay xeebtii ayaa daawashad loo aaday maalinkii oo dhan halka lagu soo qaatay dabayaaqadii duhurkii ayaa laga soo tegay oo xilligii qadada markay xaafadda u soo socdaan intay jidka soo marayaan ayaa waxaa ka hor yimaaday koox ka mid ah dhalinyaradii reer waqooyiga ahayd ee la socotay markiiba waxaa gooni loo leexsaday Haruun oo lagu yiraahdo maxaad gabdhaheena u wadaa oo mar walba adiga u daba joogtaa Haruun iskama waaline wuxuu ugu maamaahay intaad diiqaagiga cisho dhihi lahayd adigu dooradaada cisho haddaad ku kalsoon tahay waa kuwaas ay kaxayso hadday ku raacayaan anigu ha isoo dabagalgaline markiiba Haruun oo dareensanaa inay nimankaani weji wanaagsan lahayn oo ay dagaal u socdaan uu isaga dhaqaaqay Haruun uga sii socday markii xaafadii uu gaaray adeeyin kadib qalbigii casir leexi maray maqribka soo dhow yahay asaga oo taagan tubadii biyaha ayaa mid ka mid ah iyaga oo cabsanaa qamriga soo dhigay ayaa u imaaday oo ay soo direen ayagii inay ku yiraahdeen oral la soo dagaal balse Haruun ninkii intuu caga jugleeyay iska diray kadibna habeenkii sidii lagu seexday maalintii ku xigtana waxaa soo baxday in la baxayo waxaana la soo diyaariyay safarkii bixitaanka oo lagu aadayay magaalada weyn ee Casab ee dhinaca waqooyi bari ka jirta magaalada Asmara fiidkii dambe ayaa laga kaxeeyay dhalinyaradii dhammaantood oo tahriibayay waxaana loo kaxeeyay dhanka iyo boosteejada ama istaanka basaska ee u baxa magaalada Casab halkiiba habeenkii dhan la joogay ilaa waagii markuu bari rabay baabuur laga raacay basa waxaana loo dhaqaaqay dhanka iyo Casab maalinkii oo dhan ayaa la socday mar ay barqadii tahay oo duhuradii soo dhow yahay yaa waxaa bilaabatay in Haruun baabuurka dhexdiisa lagu ataago oo dhalinyaradii reer waqooyiga qaybta ka mid ahayd ay doonaysay gabdhahan inay falxumaystaan ku soo weerareen maadaama ay gabdhihii asaga ag fadhiisteen baska intii la saarnaa kadibna baskii wuxuu gaaray in la joojiyo oo askar loogu yeero dadkii la kala qaybiyey kooxdii dagaalka qaadana gadaal la fadhiisiyey kooxdii kalena hore lasoo fadhiisiyey Haruun iyo gabdhihii sidii ay weli isu ag fadhiyeen ayagoo is ilaashanaya balse dhalinyaradan sidaa kuma ayna daaninaya habeenkii xigay ayaa waxaa dhacday in lagu dego meel ka soo sokaysa magaalada Casab maadaama ay giidkii gobolkii u dhacay markiiba waxaa la aaday hoteelo maadaama hoteeladii ay buuxeen waxaa lagu qasbanaaday in bannaanka la seexdo markii la casheeyay kadib ayagoona gabdhaha aanan ka fikirin inay wax cuneen inay meel seexdeen inay meel heleen ayay habeenkii xilli dambe sidoo kale mar labaad soo weerareen oo ay xilli dambe habeena gabadhihii ayagoo dul taagan lagu arkay kadibna dagaal kale ay meesha ka dhacay oo boolis loogu yeeray nimankii meesha laga kaxeeyey oo goob kaleeta la dhahay seexda subaxii markii waagii baryana laga dhaqaaqay meesha waxaa la gaaray magaaladii Casab ahayd magaaladii Musawac ahayd raalin ahaada hilmaam hadalku ma jiro ee waxaa iga xasuusinaa magaalada laga baxay inay ahayd Casab oo loo socday magaalada Musawac halka aan qisada hayba ka badan kaga sheegay Casab in loo socday balse markan waxaa loo socdaa magaalada Musawac oo ah magaalo xeebeed sidoo kaleeto
markii la yimid magaalada Musawac waxay leedahay kaam aad u weyn oo xaafad dhan u qalanta oo ay leeyihiin Soomaalida ay qabiilna Soomaalida ay joogaan ayaa kaamkii lagu dejiyey markiina waxaa la bilaabay in la diiwaan geliyo maadaama subax aroora ay ahayd waxaa lagu amray nin walba inuu dadkiisa meesha ka raadsado oo diiwaangelinta ay bilaabanayso 4 saac wixii ka dambeeyo marka isu soo laabta halkiiba waxaa istaagay markiiba dhalinyarada reer waqooyiga kuwa ka mid ah waxayna dhaheen niman yahow meeshaan qabiil walba qabiilkiisa waa joogaa nin walba dadkaaga raadso gabdhihiina waxaa lagu qasbay inay Haaruun ka haraan oo ay soo raacaan maadaama ay ka qabiil ahaayeen asagana uu dadkiisii raadsaday oo sidii loogu kala tegay balse gabdhihii oo ka cabsanaya nimankan ay dib u soo laabteen oo dib u raadiyeen Haaruunna uu ka maqnaa meeshii oo ay xaafad kale u joogay balse markii laysu soo laabtay diiwaangelinta dib isu heleen ay ku yidhaahdeen war anagu nimanka ma raaci karno markiiba maskaxdeena ayaa la qalday annagu waxaan islahayn dad wanaagsan kaleeta dhexgelaysaan balse waxaan aragnay inaan nimankii baylaha u nahay ee adigan ku raacaynaa halkii ayaana Haaruun lagula soo raacay oo xaafaddii uu ku tegey sidii ayay kula tegeen gabdhihii isdiiwaangelin iyo kadib markii magaalada lala qabsaday maalinkiina la joogay maalintii xigtay ayaa waxaa loo qorshaysay markaan waddadii oo ahayd in loo socdo dhanka iyo Suudaan in la aado balse Haaruun Cali iyo xaaskiisa Maryan iyo Jaamac iyo Cabdullaahi waxay go'aansadeen inay ka haraan dadka safarka ah maadaama uusan haysanin qarashkii ay ku baxayeen oo sugayeen qarashaad in loo soo diro dadka ka intiisa badan qarashaadkooda way wateen marka ubax iyo ogbaad ayagu way wateen qarashaadkoodii maadaama dadkuna ay baxayaan Haaruunna u bixaynin waxay noqotay inay kala haraan oo ubaxay raacdo dadkii balse Haaruun oo la ballamay dhalinyarada reer xamarka ay la socday asaga in gabdhahaasi ammaankooda ay ilaaliyaan maadaama asaga kaga harayo halkiina ay ku baxeen ubax iyo ogbaad iyo dadkii ka intoodii badneedba waxaana meesha ku soo haray Cali iyo xaaskiisa Haaruun Jaamac iyo Cabdullaahi sidoo kalena meesha ay muddo joogeen waxay heleen qof kaleeto oo gabar kale oo iyadana rabtay inay aado dhanka iyo Suudaan oo ku safar darsatay muddo yar kadib Haaruun iyo asxaabtiisa way heleen qarashaadkii ay sugayeen waxaana la isu tabaabushaystay in meesha laga baxo saad ogtihiin Cali iyo xaaskiisa Maryan Jaamac iyo Cabdullaahi waxay iska soo barteen caasimadda Jabuuti marka kooxdan intooda badan waa dad ay shubinax yihiin oo muddo isla soo socdeen halka Sacdiye ay gadaal kaga soo biirtay oo safarka ay raacayso iyada habeenkii dambe waa laga soo baxay magaalada Musawac waxaana loo socdaa dhanka iyo Suudaan xuduudkeeda waxaa laga soo raacay gaari xaaji Qamsiina balse nasiib darro gaarigii meel fog muusan keenin wuxuu ku gaarsiiyey tuulo ka mid ah tuulooyinka Eritrea xeebteeda ku taala halkii ayay waxaa lagu dhahay aniga intaa ma dhaafi karee waxaan idinku darayaa nin geel wada geelkaasaa raacaysaan geeley ah ninkaa ayaa idin geenaya meel u dhow xagga iyo xuduudka marka idinkana informationkiina halkaas ka sii aruursada ay sii socda halkii bay habeenkii seexdeen subaxeediina ay ka baxeen oo geelkii raaceen hadda qof ayaa hal geel ayay wateen halka geelana qofba mar ayuu fuulayay Haaruun markiis la soo gaaray wax badan muusan saarnayn maadaama uusan ahayn qof u bartay inuu geela dushiisa fuulo wuxuu go'aansaday inuu lugihiisa ku caanomaalo oo socdo halkii baa laga sii socday muddo isbuuca markii la sii socday oo saxaraha habeenna la sii nasanayo maalinkiina la soconayo ayaa waxaa la gaaray tuulo ka mid ah tuulooyinka u dhow xuduudka oo weli laakiin masaafo dheer u jirta markaasaa jihadii ayaga ay ku soo degeen ay ku socdeen waa laga qalday oo qof ayaa information qaldan siiyey jiha kale u tilmaamay laakiin jihadani waa jihada dheer ee laga gaari karo Suudaan halka jiha ka gaaban ay jirto sida meeshii socod ka bilaabeen ayagoo just information wato wax qof aan la soconin Haaruun iyo asxaabtiisii waxay muddo socdaan maray garab casar liica tahay ayay waxay la kulmeen nin gaari wata iyo xaaskiisa oo xaajid meel taagan halkii waxay yiraahdeen bal ninkani hadduu idinka qaadanayo lacag siiya oo haydin qaada xagga iyo xuduudka balse nasiib darro muddo yar markii ay heshiisku u socday ayaa waxaa kasoo duldhacay gaari askar ay wataan ninkii iyo xaaskiisiiba waxaa loo maleeyay niman dad muqallasiin ah oo dad wada tahriibayaal ah
in la xirxiraa lagu bilaabay halka Haaruun iyo asxaabtiisu ay askarta u sheegeen war annaga jihadaanaan ka imaanay gaarigaana meeshaan taaganaa kusoo leexanay waxaana weydiisanaynay biyo inuuna siiyo iyo raashiin iyo jihadaan u soconay inuu noo tilmaamo marka askartii ayaa waxay bilaabeen inay fiiriyaan halkay ka yimaadeen dhulku maadaama uu saxaro ahaa waa la aqoonsan karaa qofka halkuu ka yimaaday maadaama socodkiisa la arki karo marka dib ayay cabaar u raaceen waxay arkeen inay dadkan lug kaga yimaadeen jihadan gaarigaanna uu jiha kale ka yimaaday marka aysan isla soconin halkan ku wada kulmeen marka dad ninkii naagtiisa sidiiyaa lagu sii daayay askartii waxay yidhaahdeen waxa ugu wanaagsan ay leedahay Eritrea waxa waaye Soomaalida oo tahriibaysa haddii la arko lama xiro waa la sii daayaa oo way sii socdaan safarkoodii wadaan halka marka askartii waxay yidhaahdeen anagaa idiin sii dhaweynayna jihadii idinka jiha qaldana ku socotaan ee soo baxana raaca baabuurkeena soo fuula gaarigii ku qaadeen marka waxay keeneen waddo yar oo kala beer ahayd oo dhaheen halkan aniga jihadana u soconaa idinka halkan ka baxa waddadan markaa qaadaan toos u socotaan adinku haddaad socotaan muddo ilaa iyo 8 saacadood waad gaaraysaan halka ay ahayd galab casir leeca maqribka soo galayo waqti badanna ma socon karin waxay ku qasbanaadeen dhax inay seexdaan subaxii waagi markuu baryana laga dhaqaaqay halkii marka qofkii carabiga si fiican u yaqaanay ee dhalinyarada ku jiray halka Haaruun uu garanayo carabi markaan laakiin se uusan ahayn macallin balse qofka macallinsan uu jiro ayaa asagana uu ka weyn yahay Haaruun waa yaraa ayaa lagu qasbay in ninkii ayaa wuxuu ku yidhi ayaa idin hogaaminayay halkan isoo raaca jihadii loo tilmaamay jiha ay ahayn ayay aadeen maalinkii waxay gaareen inay lumaan oo ay dhulban ah oo ay ku socdaalaan oo waqti ka badan ay socdaalaan oo ay ku dhowaadaan inay biyo la'aan iyo baad la'aan haraad ugu geeriyoodaan saxarihii moralina ay niyaddii ka jabtay oo aynan dhihi karin dibna uma laaban karno halkii aan ku soconayna maana gaarin waqtigiina la dhahayna waad ku gaaraysaan ka badanna waa soconnaa markiiba waxay go'aansadeen inay fadhiistaan geedo balse nasiib darro dadkii way kala jabeen laba koox waxaa israacay cabdullaahi iyo jaamac oo ahaa qofkii carabiga yaqaanay ayaa dhahay anigu ma fadhiisanaya waa soconaya halka cali iyo xaaskiisa oo ahayd gabadh xoogaa markaa xaamilo ah maryan ayaa geedkii hoos fadhiistay iyo gabadhii kale sacdiye la socotay Haaruunna maadaama dadkan ay waqti badan isla soo socdeen waa la xumaatay inuu ka tago marka wuxuu yidhi waxaa qabtaan waa idinla qabaa dhib ma lahan halkaan idinla joogaya muddo yar markay ku nasanayaan geedkii hoostiisii ayaa waxaa u soo muuqday rag kaloo geela wata oo koortoodii dhawaqeeda ayay maqleen oo usoo yar gacan haatiyeen waxay ku yidhaahdeen fadlan na caawiya oo meeshaan ayaan ku dhibaataysanahay jihadana waa naga qaldan tahay markiiba nimankii waxay siiyeen wax yaro biyo ah iyo raashiin waxayna ku yidhaahdeen meesha u socoteen annagaa idin geynayno iyagoo intii kula heshiiyeen oo ay xataa Haaruun iyo asxaabtiisa ku yidhaahdeen lacag $100 aan idin siinaynaa haddaad na geysaan meeshaas ayaa waxaa markii soo laabtay jaamac oo la socdo dameer alaab ku sida maadaama jaamaca wuxuu gaaray tuuladiina loo tilmaamay inkastoo ay jiha qaldan aan kasoo galnay jihadii loo socday aanan ahayn balse tuuladii markuu tegay ayuu wuxuu kasoo qaaday waxyaroo biyo ah iyo raashiin asagoo sida oo dameerna loo soo dhiibay soo raacay ayuu u yimaaday dadkii uu ka tegey halkii buu biyihii raashinku siiyey nimankiina lagu fasaxay oo la yidhi anagu jihadan u soconay tanay ahayd meel dheer ma ahayn balse maadaama aadna caawiseen waad ku mahadsan tihiin haddana waxaanu aadaynaa tuuladii markii tuuladii ay ku degeen halkii maalinkii ilaa iyo maalinkeedii kale ku nasteen maadaama ay aadna u daalanaayeen eena haraadanaayeen tuuladii ayay maalinkii dhan ay joogeen maalinkeedii ka xigta ayay ka baxeen tuuladan waa meesha ugu dambeyso ee carrada Eritrea oo ay ka bilaabanayso carrada Suudaan markii ayay safar gaaban oo lug ah oo 2 saacadood ah qaadanayo ay ku tageen tuulada ugu soo horeysay ee Suudaan tuuladan ayaa waxaa laga helaa gaari ka baxaya oo aadaya magaalada Towkar maalin kadib waxay meeshii tuuladii Suudaan ka raaceen gaari loori ah oo u socda magaalada Towkar magaaladii Towkar markay tageen Towkar waxay leedahay xero qaxooti oo lagu soo dhaweeyay dadka qaxootiga meeshii ayaa lagu ogeysiiyey in kooxdii ayaga ka horreysay ee soo martay halkan ay timaaday oo 2 maalin ka hor laga qaaday loona qaaday dhanka iyo magaalada u dhow Khartoum magaalo u dhow Khartoum oo dadka qaxootiga la isugu geeyo
isla xarunta qaxootiga ee magaalada Tokar ayaa Harun iyo asxaabtiisa loogu sheegay kooxdii ka soo horeysay laba bas oo qaaday ay dagaal ku dhex qabsadeen intii jidka sii socdeen ayaga dhexdooda dagaalay kadibna baabuur basaska ka mid ah miraayadiisa hore windshielka la burburiyey oo askar loogu yeeray raggii kadibna qayb ka mid ah askartii ee xirtay qayb dadka ka mid ah qaybta kalena ay halka kasii wateen oo la geeyey magaaladii kasii horeysay qisadu gabdhahaasi halkan ayay ku eg tahay maadaama aysan dib dambe isu arkin gabdhihiina waxaa ku maqaalo ah meer facebook kala hadlay ubax harun waxay u sheegtay inay gaareen sweden ayna geeriyootay kaltuun iyadoo cunto ku karinayso jiko gaas ayaa ku qarxay sidaa darteedna ay u geeriyootay markay sweden gashay haddana qisada waxay kusii soconaysaa harun oo markeedii horeba ay ku saabsaneed isaga muddo yar kadib Harun iyo asxaabtiisii iyo koox kaloo gadaal kaga soo biirtay bas baa laga saaray magaaladii waxaana loo qaaday magaaladii kaleete ee ku taalay u dhoweyd Khartoum halkii ayay qaxootiga weyn ku tageen qaxootiga weyn ku degeen magaalada waa magaalo webi ag maro aad u kaneeco badan aadna u bahalo badan siiba dib qallooca wiilashii Harun la socday kadib muddo yar kadib uu dib qallooc ku qaniinay oo hospitalize noqday isbitaal la dhigay muddo yar kadibna ayagii ay ka baxeen ay Khartoum gaareen Khartoumna ay la wareeganin muqallas ahaa oo Soomaali ahaa oo ku dejiyey hotel uu ku yidhi nin walba waxaan ka rabaa $600 inuu isiiyo si aan aniga isu furdaamiyo oo aana idinkugu nimankii idin keena iska siiyo idinkana aad ku gaartaan Liibiya hadda isiiyo min $600 Harun muusan ahaanin reerkiisa sidaa hodan u ah oo u soo diri kara lacag intaa la eg wuxuu ku qasbanaaday inuu ka haro safaradii dambe oo asagana dego magaalada Khartoum muddo 2 sano ahna uu ka shaqaysanayay maqaaxi ku taalo magaalada Khartoum oo noqday marna nadaafad uu ka shaqeeyey marna uu ahaa ninka kuga caawiya markii dambena uu noqday foornada ninka heesta oo foornada rootiga maqaaxida u samaysa halkiina uu 2 sano ka shaqaynayay lacag kaga aruursaday si uu uga baxo oo ku aado dhanka Liibiya markii la gaaray safarkiisii wuxuu raadiyey dadka qaada waxaana loo sheegay in Soomaalida ay qayb basas ku baxaan Suudaantana gawaari kale ku baxaan halka Ethiopiaantana iyagana sidoo kale gawaari ku baxaan laakiin intii uu joogay Suudaan wuxuu ogaaday in Soomaalidu bakafa ku qabsado dalka Liibiya oo lacaga fara badan la weydiisto halka Harun uu doonayay inuu kaas kaga badbaado wuxuu iska dhigay nin Suudaani ah maadaama luqadii si fiican Suudaaniiska u bartay 2 sano uu joogay uuna ka shaqaynayay qabiilaadkiina uu kala bartay qabiilkii magaalada Tokar deganaa oo la yiraahdo qabiil Adroob ah oo Soomaalida u eg ayuu sheegtay dadkii tahriibayay ee Suudaanidii ahayd ayuu raacay gawaaridii Suudaanida lagu daray asagoo nin Suudaani ah oo aan laga dhex garanaynin maadaama sharci aan la isweydiinaynin markii safarkii ay galeen oo ay tageen xuduudka Liibiya muqallaska labaad ay kala wareegaya gaalada Suudaan ay ku wareejinaya gawaarida Liibiya ayaa ninkii ku dhagay Harun ahaa oo yidhi adu maba tihidba Suudaani Eritrean ama Ethiopian ama Soomaali baa tahay halkii uu Harun isaga dhiciyey luqadii carabiga uu yaqaanay oo ninkiina kaga foqay oo kadibna isagoo Suudaani ah sidaa ku galay Liibiya kadib safarkiisii markii uu sii watay markani wuxuu joogaa magaalada Kufra ee ugu sukaysa dhanka xuduudka Suudaan ee Liibiya ku taala magaaladan Kufra ayuu wuxuu ku dalbaday lacaga oo u taalay Soomaaliya oo ka soo dirsaday kadibna wuxuu dadkii uu la socday u sheegay maadaama uu joogo Liibiya inuu Soomaali yahay uusan ahayn Suudaani oo uu sheegtay dhibaatada ay haysata Soomaalida dadkii tahriibayaasha ah markiiba waxay ka raaceen Kufra gaari u qaadaya dhanka iyo Ajdaabiya oo lacag uu ka qaatay marka wuxuu u qaaday xagga Ajdaabiya balse ninkii gaariga Ajdaabiya u qaaday muuna gaarsiinin Ajdaabiya laakiin wuxuu ku xiray gaari kaleeto meel ayuu ku dejiyey wuxuu yidhi gaari baa halka idinkugu imaan doona idinka qaadi doona halkiinan jooga asagii kooxdii Suudaanida iyo jaatiyaan yaroo la socday markiiba waxaa lagu dejiyey meeshii duurka ahayd habeen xilli dambe ahayd 2 habeenimo meelaha
waxa u yimid gaari oo nin wiil dhalinyara Liibyana uu wato. Gaarigii marka wuu yaraa gaariga, dadkii dhan baa la saaray, halka Haaruun la yidhi adigu sugada ugu dambeynayo. Kadibna markii gaariga la wada saaray, Haaruun waxaa la bilaabay in la baarto oo jeebkiis wixii ku jira la weydiiyo lacagaha haysatay keen, maadaama dad ka mid ah dadkii magaalada Kufra oo kasoo tegay ay ruufiyaaneen. Balse Haaruun oo ahaa nin taagtiga badan ayaa markiiba hore ogaa in insaan ku dhici karto lacagihiisii wixiisii kala qabaystay, xitaa haddii mid ka mida la helo inta kale ay inay u badbaado. Balse nasiib wanaag ninkii muusan helin lacagtii, inkastoo uu ahaa ninka wax kale inuu ku mashquulo damaaciyo Haaruun oo xubintiisa taranka gacanta ku qabsado. Balse Haaruun oo ahaa nin aad u feejigan uunta dib uga booday, laba dhagax qaatay intuu boodayay oo surwaalkiisiina la baarayay. Markii dib u soo ceshtay kor u soo qaatay ayaa waxaa lagu dhuftay tuurey. Nasiib wanaag maysan dhicin, gudaha jirkiisa maysan gudbin. Surwaalka oo ka kanaa maadaama uu ahaa surwaal adag jeans ah ayay surwaalkii dilaacisay, laakiin jirkiisii maysan gudbin tuureydii. Ninkii mar alle markuu arkay ninkii inaysan tuureyda ku dhicin oo dhagxaanna uu haysto, oo wuxuu ku yidhi okay, oo u fikiray wuxuu yidhi hadda meeshan wax ma looga qaadi kara, ninkaana meel kale oo fog sii geyso. Markaabuu wuxuu yidhi gaariga soo gal. Haaruun oo tuhun ku jiro ayaa gaariga gediga kale ka galay. Khamiis uu watayna gacanta ayuu isaga duubay, haddii lacalo ninkan tuurey soo tuuro aysan kugu dhicin. gaarigii meeshii ka dhaqaaqay markuu muddo socdo oo aan magaalada Ajdaabiya la gaarin, waagina baryi rabo oo cirkii soo iftiimay, salaadii subaxna la tukaday, ayuu gaarigii ninkii joojiyey. Markaasuu kasoo degay. Haaruunna waa tuhnsanayo, horow ka booday, gaarigii wuu ka degay. Intuu boodayay kab ka mid ah kabihiisa ayaa gaariga kaga hartay. Boorsadiisana markii hore bay gadaalba gaariga kaga jirtay. Mar alle markuu ninkii soo degay oo Haaruunna ka booday gaariga dhinac kale istaagay, ayuu ku yidhi maxaad u degtay gaariga, adigana maxaa usoo degtay buu ku yidhaahday. Ninkii iskama waalin, gaarigiisu albaabka ka xirtay, gaarigii galay, waana kaga tegay halkii saxaraha ahayd. Haaruun maadaama Haaruun uu ahaa nin jihooyinka kala yaqaana, wuxuu fiiriyey jihada gaariga uu aaday. Marka wadadii ayuu dib u soo qaatay. Markaasuu ugu soo socday wuxuu ku yimaaday dhul beera ah. Beerihii oo markaa nin ka mid ah dhalinyarada ka shaqaynaysa oo jaadiyaan ahaa wareystay ku yidhi niyahow, halkaasaan ku socday, nin baa la socday, gawaari nagu waday, nigii jidku iiga tegey. Kab ka mid ah kabahaygii gaarigay dhex saaran tahay, boorsadeydii gaarigay raacday. Nasiib wanaag maxaa la dhahaa, waa caafimaad qabaa, waxba dhiba ma qabe, waxaana ku socdaa magaalada Ajdaabiya. Markaa ku yidhi magaalada Ajdaabiya ma dhowa, way fog tahay, laakiin tuulo ayaa kasoo sugaysa, tuuladaha dhexdaa ku taalla. Dad Suudaani badan waa ka helaysaa ku caawiya, fadlan halkaa usii gudub. Ninkii tilmaamtii uu siiyey, Haaruun halkii uu ka dhaqaaqay, wuxuuna ku aaday dhanka iyo tuuladii markuu tegay, nin Suudaaniis oo aad u wanaagsan oo Cabdullaahi la dhahay magaciisa ayaa soo dhoweeyey, gurigiisa geeyey, dhar siiyey, kaba siiyey, cunno siiyey. Kadibna ku yidhi maalin jimce ahayd, nasiib wanaag salaada jimcaha oo Haaruun ku halaalay inuu kula tukado masaajidka. Kadibna meesha ku wada qadeeyaan. Haaruun wuxuu u gaday shaati, ilaa iminka Haaruun shaatiga wuu hayaa oo xasuus ahaan u haystaa. Sanaduna waxay tahay 2010 bishii March. Markan ayaa waxaa Haaruun lagu daray gaari magaalada looga daray oo u qaadaya dhanka Ajdaabiya. Nasiib wanaag ninkaas inuu gaariga ka dejiyo way u wanaagsaneed, maxaa yeelay marka wax kaa halaabaan, ilaahay wax kale ayuu waddo kale ayuu ku furaya faraj. Maadaama gaariga uu ka degay, ninkanna uu kusoo hayay ilaahay, waxay noqotay in magaalada Banqaazi halkuu ku degi lahaa iyo meeshuu seexan lahaa loo sii diyaariyo, oo magaaladii Ajdaabiyana gaari looga qaaday ilaa iyo Banqaazi sidii ku gaaray asagoo nabad qaba, waxba gaarin. Mar alle markuu Banqaazi gaarana lagu yidhi kaala shaqayso oo waxaa rabtid meeshaan naseexo, waxaa rabtidna annagana weydii. Mar alle markii magaaladii uu ku degay oo muddo yar ka shaqaynaya isbuuc ah, wuxuu go'aansaday inuu ka baxo magaaladii uuna aado dhanka iyo Tripoli. War xureen yar kadib, Haaruun wuxuu ka war helay magaaladan inay ku taalo jaaliyadda Soomaalida oo ay u samayso dadka bitaaqa ama ID yar oo lagu maro waddada. Haddii askarta ay ku joojisa aad tusinaysid, halkii ayuu ku samaystay warqaddii, basna ku goostay oo kaga baxay magaaladii una socday dhanka iyo jihada Tripoli.
habeenkii markuu baxay waagii intuusan baryin isla habeenkii waxaa lagu qabtay magaalada Ajdabiya banaankeeda control ku yaala. nasiib darro maalinkaas waxay ahayd maalin uu madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Liibiya Muammar al-Qadaafi ay ku qabanayeen shirka jaamacadda Carabta oo sanadkaas Soomaaliya ay heergudaaminaysay. Soomaaliya maadaama lagu qaban karinne uu madaxweyne Sheekh Shariif u doortay in lagu qabto magaalada Masarata ee dalka Liibiya uuna la gudoomiyo Muammar al-Qadaafi madaxweynaha dalka Liibiya. ayagana lagu amray dadkii askarta magaaladaas wixii soo aadaya dhan laga celiyo maadaama ammaanka madaxda imaanayso aad loo ilaalinayo. Harun wuxuu ku qasbanaaday maalinkan in laga dejiyo gaarigii oo la xiro maadaama uu yahay qof aanan sharci sax ah haysanin, bitaaqadanna aysan ahayn mid sax ah oo aanan la aqoonsanayn. halkii ayaa lagu dejiyey gaarigii oona looga reebay laguna daray maxaabiista xabsiga Ajdabiya ku xiran ee dadka qaxootiga ah oo aanan sharciyada haysan. halkan ayaa ku joojinaynaa qaybta afaraad maadaama ay dheeraatay. qaybta shanaad waxay ka bilaaban doontaa xabsiga iyo dhibaatooyinkii uu kala kulmay Harun iyo sida uga soo baxay. haddaad ka mid tahay gruubka ku xiran janalka Ustaad Jafo waad ku mahadsan tahay. haddaadan ka mid ahayn fadlan nagu soo biir. haddaad sheekadan ka heshay fadlan noo dhaaf suulka kor u taagan. haddii aad talo iyo tusaalena siinaysid fadlan hoos noogu dhaaf. waad ku mahadsan tihiin dhammaantiin. wasalaamu calaykum. ciao ciao.